nimanka la yiraahdo Iran ma yaqaanaan wax kaftan ah iyo waliba wax jaxanjax iyo naxariis la yiraahdo markay saddex majaal joogtaba ama saddex dhinac markay Iran ay arinteeda taagan tahay haddii dagaal iyo wax iska dhacin la yiraahdo Iran wax turaale iyo naxariis looguma tago tabarteeda ay dagaalamaysaa taagteedana waa rafanaysaa marka miiska wada xaajoodka la yiraahdo hadal looma hoosgaliyo weeraha iyo waliba ujeedooyinka diblomaasiyadeed ee miiska ay soo saarayaan waxay ku gudbiyaan cod kanooni ah oo aan waxba ka qarsoonayn dhinaca kale marka loo yimaado sirdoonka iyo waliba arrimaha jira oo hoose waa niman ku wanaagsan sida ay arintaasi xaaladeeda u maaray lahaayeen haddaba ninkii qaalibaaf ahaa waa afayeenka baarlamaanka wadanka Iran warbaa ka soo baxay waxa uu leeyahay war Mareykanku waxbaanu ogeyne waa nagu siran yihiin maxaa hadalkan ka keenay doodiisana maxay taabanaysaa qodobka meel iska dhig ninkii Trump ahaa waxa la leeyahay waxa uu ku dhawaaday marada inay ka dhacdo sababtana waxay tahay arrimo badan oo sirdoon oo loo sheegaya ayaa waxa uu lahaa maya ma dhici karaan Iran ma samayn karayso laakiin hadda waxa la leeyahay The Wall Street Journal waxa uu taagan yahay caawa war Trump oo fiicnaan lahayda maalintii ay maalin ahayd oo sirahan lagu sheegayay inaad wax ka qabato maxay sameeyeen sirdoonka Iran maxaase la soo gudbiyay oo la iska indhatiray hadda ayaa waxa la ogaaday kolkay midiyo uusku tagtay iyana waynu dul istaagi doonaa dhinaca kale la taliyo sare oo Trump ka tirsan maamulkiisa ayaa caawa hadlay waxa uu leeyahay nimanka Iran la yiraahdo mugdi 4 baa u dhiman howshooda waa ku daysay dawladda Mareykankana waa adkaatay laakiin ninkii Trump ahaa isna wuxuu leeyahay ma taqaanaa anigu maba aaminsano kula Mujtaba Khamenei inuu dhinto oo goormo Mujtaba dhimanayay soo kan kula dagaalamayay dagaalka kula jiray warbaahinta qaar doodihiisa iyo isqarintiisa iyo dhakashadiisa iyo marka la soo bandhigay lahaa Trump isma oga agoon iyo ninka aabihii dilay caawa ninkii Trump wuxuu aaminsanaaba la leeyahay Khamenei inuu dagaal marba wadaga soo booday waxa uu leeyahay aniga ninka inuu dhinto ma aaminsani malaha manninka waxa uu ku kahayaa Khameneigan wuxuu la jeedaa Cali Khamenei sidee dooda loo dhigay waan isla eegi doonaa waxa inta raaci doona khiyaarta inala socotay dawladda Qatar oo wax ka duwan dalalka bariga dhexe sidee wax u arkaan wax u arkaysa maalinta bari ah wafdi culus oo ra'iisul wasaaraha wadankaasi ka mid yahay ayaa u dhoofaya magaalada Tehran waxana ay la kulmayaan ragga ugu sarsareeya ee dawladda Iran markan waa la toogaya waxa la leeyahay Iran ay ka daadsadaan maahe haddaba maxay Iran soo wadaa maxaase kashaashinta hoosteeda ku jira waa jiqda ama jafka maxaa Iran ugu jiro la moog yahay oo hadhow ay rabtaa inay ka soo saarto intaaba khiyaarta inala socotay tabintan labaad ee caawa iyo barnaamijka lafagurka iyo wararka caalamka iyo waliba taxliilinta diblomaasiyadda ayaynu ku eegi doonaa laakiin su'aasheena caawa waxay tahay muxuu Trump sawirro dhan dabagaal u muuqda u bixinaya Iran adduunka ay u toogaya waxa uu leeyahay waa ka adkaana Iran salkan dhulka ugu dhufanay meesha waxba kuma hayaan laakiin dhinaca kale markaad fiiriso adduunka dhan Iran buu toogaya war qaalibaaf oo naga daa war Mas'uud Basashkiyan oo saas maaha war Mujtaba qabanayo doodeena aqbal Pakistan dawladda Turkiga wadamada xitaa Qatar ay kamid ahayd waxa la leeyahay marka ay Pakistan qoysata Qatar loo diray maxay kula muuqataa arinta ma Trump baa naqaldaya mise Iran baa istaawilaysa awood dhaanteeda xaqiiqada ayaa si dhab loo wajahaya waxaan ula jeedaa arintan dawladda Iran muddo ayaa laga dhigay wadan go'doona oo Trump lahaa albaabadaynu ka xirnay salkayna dhulka ugu dhufanay bad laga magali karo birhina warkiida shacabka baahi bay u dhimanayaan ayuu in muddo oo doora warbaahinta ku celcelinayay laakiin mid kamid ah saaxiibadiisii ugu weynaa ee bariga dhexe ayaa hadda u soconaya magaalada Tehran sababta ugu weyn waxay tahay Iran baa laga raadinayaa nabadda gobolka bariga dhexe hadda waa kingmaker marka la yiraahdo ama cidda kala goynaysa siyaasadda ay waxa taagan ayay Iran noqotay sidaa darteed ra'iisul wasaaraha wadanka Qatar
waxa uu warwareego habeenba wadan la hadlo hadda waxa uu leeyahay warniyo kamaba soo hartaba in basashkan iyo qaalibaaf iyo caraqji ragga ugu sareeya waxiida uu kamid yahay taliyaha ciidamada kacaanka Ismaaciil Khani oo Fayliq al-Qudus haysta iyo ragga ugu sarsareeya oo Muxsin Rida uu kamid yahay galka amniga gacanta Iran ku haya raggaas inta la fariista la yiraahdo war saaxiibayaalow gobolka bariga dhexe weynu ognahay rag isku filan baatihiin loolan ma jiro wanaga qafiifiya xaalkan oo nimankan Mareykanka la yiraahdo waa soo qalantaane kaalay wada fariista arrinta markay halkaasi gaarta marka warkii Iran maalmihii ugu dambeysay ay warbaahinta ka gadayeen oo ay lahaayeen dalka Mareykanka oo isku arkaya dawlad xoog weyn Iran waxay noqotay codkii ay cantuugtay cunaha u dhaafi waayay halkaas ayaa caawa dooda Iran iyo xaalka bariga dhexe lagu tilmaamaya laakiin waxa la leeyahay wasiirka amuraha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha wadanka Qatar iyo waftiga culus uu biri hogaamin doona ee gaari doona magaalada Tehran xaalkoodu wax sahlan ma wadaan ayaa la leeyahay balaynu eegno arrimahaasi sida ay caawa u dhagayaan qaar ka mid ah warbaahinta gobolka oo si weyn u taxliilinaya waxa la leeyahay dawladda Qatar ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka amuraha dibadda ee dalkaasi Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani oo biri booqan doona caasimadda Iran ee Tehran iyadoo ujeedadu ay tahay in laga shaqeeyo dejinta xiisadda gobolka iyo waliba abuurista jawi ku haboon wada hadal siyaasadeed booqashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dadaal diblomaasiyadeed oo lagu yareynayo xiisadaha kaaloosan gobolka ay sii xoogaysanayaan gaar ahaan arrimaha la xiriira Iran marinka Hormuz iyo waliba xiriirka u dhaxeeya dhinacyada iska soo horjeeda ee loolankooda uu culus yahay Qatar ayaa muddooyinkii ugu dambeysay door muuqda ka qaadanaysa baa la yiri dadaalada dhaxdhaxaadinta iyo fududeynta wada hadallada gobolka booqashada Tehran ayaa sidoo kale loo arkaa tallaabo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in loo abuuro waddo cusub oo u horseedi karta baa la yiri xabad joojin dejinta xiisadaha iyo dib u bilaabidda wada hadalka siyaasadeed waa sida dhinacyadan ay aadka ugu doodayaan iyadoo marka arrimahaasi caawa ay taagan yihiin dawladda Iran waxa ay isaga jirtaa dabaaldeg diblomaasi ah kadib markii wadanka Oman iyagu ay kala socdeen heshiis lagu tilmaamay mid u wanaagsan dhaqaalaha wadankaasi Iran arrintu waxay tahay Oman qudheeda in laga dhaxtusay wadankaasi in fursado waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha iyo awoodda ay ka heli karaan marka la fiiriyo juqraafi siyaasadeedka ee gobolka uu ku leeyahay marinkan xasaasiga ah ee Hormuz la yiraahdo dhinaca kale wasiirada amuraha dibadda ee Iran Dr. Abbas Araghchi iyo wasiirka Oman Dr. Badri Al-Busaidi ayaa salaasada ka wada hadlay qaab dhismeedka heshiis lagu sameynayo marinka Hormuz oo si kumeel gaar ah ujeedadu ay tahay inay uga gudbaan maraakiibta caalamiga sida lagu sheegay bayaan wada jira labada dhinac ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen qorshe lagu saarayo minooyinka badda ee ku jira marinka istiraatiijiga ee Hormuz kaasoo labada dalba ay iminka u arkaan in uu muhiim yahay isku darka dawladaha Qatar Iran iyo Oman ayaa muujinaya in wadamada gobolku ay isku dayayaan in ay helaan balayri xal diblomaasiyadeed oo lagu dejinayo dagaalka sii xumaanaya ee ku faruur xirma cirka ee u muuqanaya in ay meel adag iminka wax marayaan marka si guud loo eego dhibaatooyinka iyo loolanka culus ee ka jira gobolkaasi bariga dhexe akhyaarta inala socotay haddii aan sii eego wararka kale ee caawa inala yaala sida muuqanaysa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqanaya inuu iska indhatiray arrimo dhinaca sirdoonka ah oo la siiyo oo la xiriira colaadda wadanka Iran taasoo hadda u muuqata ragaadka dawladda Mareykanka ee gobolkaasi inay ku sii fogeysay xaalkuna uu hadda taagan yahay meel xiira ah waa sida dadka falanqeeyaasha ah iyo waliba dadka wax taxliiliya ay ku tilmaamayaan caawa iyagoo xiganaya qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn ee saameeya jihaynta aragtida gobolkaasi nuqul baaritaana uu daabacay wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Donald Trump ka hor inta aan la bilaabin howlgalkii weerarka Iran uu helay digniino culus oo ka yimi saraakiil ka tirsan maamulkiisa kuwaas oo uga digay baa la yiri
qataraha ka dhalan karaya dagaalka ballaaran ee lala galaya waddanka Iran. saraakiisha sirdoonka iyo amniga qaranka Mareykanku waxa ay Trump uga digeen xilligaasi inta laba military oo ka dhana Iran ay keeni karayso cawaaqib ballaaran oo ay ka mid yihiin qasaare badan oo naf iyo maal leh xiritaanka marinka Hormuz ka hor iyo kor u kaca qiimaha tamarta shidaalka ee dunida iyo waliba sumcadda Washington oo hoos u dhacda oo arrintan ay u muuqata baa la yiri in ay saameyn ku yeelan karayso hanaanka jaangoynta siyaasiga ah ee adduunka ee Washington ay ku lahayd. sida uu sheegay wargeyska Mareykan ee The Wall Street Journal kulan ka dhacay xafiiska Oval bishii February ka hor inta aan weerarka la qaadin ayaa Trump loo soo bandhigay qiimeyn ku saabsan faa'iidada iyo khasaaraha wadajirka ah ee weerar military oo ballaaran oo lagu beegsado barnaamijka nuclear-ka Iran isla markaana lagu weeqayo xukuumadda Tehran. agaasimihii guud ee xilligaasi hay'adda sirdoonka dhexe ee Mareykanka ee CIA oo xilligaasi si weyn ahayd dadka uga digay in haddii dib loo la dilo hogaamiyaha sare ee waddankaasi Ayatollah Ali Khamenei ay suuragal tahay in talada dalka ay la wareegaan hoggaan ka sii adag oo u janjeera inay Iran hesho hubka nuclear-ka taas oo la leeyahay Trump xilligaasi waa uu ku gacan saaray hadalkii gabadhii sirdoonka hogaaminaysa ay soo jeedisay laakiin hadda ayuu dhaydeedii dhamaya iyo wixii uu ka dhiiqsaday dagaalka. waxay sidoo kale ka digtay in dagaalka qarxa gobolka waa agaasimihii xilligaasi ee CIA iscashishay in ay Iran ku raaxi doonto xarnaashiyaha marinka Hormuz taasi waxay abuuri karaysaa bay tiri jahwareer weyn oo aan laga waaqsan karin oo gobolka bariga dhexe iyo guud ahaanba dhaqaalaha adduunka galgala. digniin ku saabsan ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale jirta xilligaasi laakiin Trump iyo waliba dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasaddu ay maan martay ee ku aadan in la kala adkaado aragtidooda ayaa arrintaasi u muuqawaysay. saraakiishu waxay sidoo kale Trump uga digeen in ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda ku sugan gobolka bariga dhexe ay noqon kareen baa la yiri kuwa bartilmaameeda. arrintan ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixin inay abuuri karto baa la yiri su'aal ku saabsan awoodda Washington ee ilaalinta ciidamadeeda iyo xulifadeeda iyo sidoo kale go'aanada Mareykanka uu ka gaari karayo gobolka iyadoo cadowga dawladda Mareykanka iyo dawladaha ay quwadaha adduunka ku loolamayaan ay ka shaashinta gadaasheeda gali karaan. wasiirka dagaalka ee Pete Hegseth taliyaha ciidamada Mareykanka ee General Duncan iyo taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM loo yaqaano Admiral Brad Cooper ayaa sidoo kale Trump la wadaagay qataraha howlgalkaasi uu keeni karay laakiin waxay u muuqatay Trump nin meel u caddahay sheekadiisuna ay ahayd meel ka madow. digniinaha waxaa ka mid ahaa suurtagalnimada khasaare badan oo soo gaaray ciidamada hase yeeshee kaydka hubka iyo gantaalaha difaaca iyo dhibaatooyinka dhanka diyaargarowga ciidamada ah intaba waxay noqdeen xaaladdu in ay aad uga sii dartay. ku-xigeenka madaxweynaha waddanka Mareykanka Pence ayaa ku baaqay xilligaasi wada hadallada in fursad la siiyo laakiin waxaa la yiri dhagal laabu duleelo iyo dhagal leyro duleelo ayaa jira oo wax kasta oo waana iyo wanaaga oo xilligaasi Trump dhinacyada lagala maray word qura jirkiisa maanay gelin waxa uu leeyahay aniga iyo Khamenei midba noolaanaya midba saguul ku dambeyn doona. hasaatee adduunka waxay u arkayeen madaxda Mareykanka qaabka Trump oo u arkayay si ka bedelan iyadoo xitaa soo jeedintii madaxdiisii ay saaxiibada la ahaa uu Trump ku yiri aniga hayeedo haddii aad geeska Afrika ka maqli jirtay. hadda Trump waxa uu leeyahay dagaalka Iran aniga hayeedo ee hala dhaqaajiyo gaadiidka. Trump oo ciidamada fasax ayaa xaalkiisu taagnaa in la yiraahdo laakiin dadka qaar waxay lahaayeen maya oo god dheer iyo waliba hadaan aad u dheer ayaa laga lalmin doonaa mustaqbalka iyo waliba sumcadda Mareykanka. tiise maanta ayuu Trump hayaa. inagoo arrimahaasi ku guda jirnaa khiyaarta ay nala socotayo taxliilinteena si la faguri doona. baarlamaanka waddanka Iran ninka hogaamiye ee Mohammad Baqir Qalibaf la yiraahdo waxa uu leeyahay sharafta iyo haybadda shacabka Iran iyo qarannimadeena wax gorgortana ma gali doonaan. sidaa darteed Trump
وعدة مضان إنه إساقة تناسلا أيو ليح قدوميها بارلمان كواتن كيران ومالميه اللي صورنا في أفكيسا أي دماع أدق أي كبحيسي محمد باقر قالباف ayaa sheegay in dadaal kasta oo lagu soo celinaya buu yiri xuquuqda shacabka Iran aysan ahayn in loo fasiro inuu yahay gorgortan isagoo carabka ku adkeeyay in wada hadallada Iran ay yihiin kuwa ku salaysan ilaalinta mabda'a qarannimada qarankan oo aanay jirin cid la baryayo oo gacanta la hoos dhigan doono qaalibaf ayaa waxa uu sheegay in dadaal kasta oo lagu doonayo in cadawga looga soo ceshto xuquuqda shacabka Iran loo aqoonsan karin buu yiri gorgortan kuwa noocaas oo sameynayna oo dadka jahwareerinaya iyo waliba kuwa xoga noocaas bixinayna waa damiino siyaasadeed oo aan ku filnay buu leeyahay in masiir umadeed bal lagu aamino waxay u muuqataa qaar kamid ah dadka gudaha jooga ee mayilka adag ee dawladda Iran ka tirsan in markan halgaadiye dharbaaxa kulul uu la dhacayo hogaamiyaha baarlamaanka oo muddo la hiraamayay balse hadda u muuqda inuu iska hiifay kuwa isaga u soo banbaxay qaalibaf waxa uu sidoo kale sheegay in hogaamiyaha sare ee Iran ee geeriyooday uu si cad u kala saari jiray la macaamilka caalamka iyo ku tiirsanaanta ama isdhiibitaanka isagoo tilmaamay in xiriirka caalamiga uusan macnihiisu ahayn in Iran ay ka tanaasushay madax banaanideeda laakiin ay jirta qadiyada mudan in laga doodo oo ma jirta buu yiri nin keligii guuleystay guushaada sabaqa lagu daraa ayuu reer Iran ku yiri sida uu sheegay qaalibaf hogaamiyihii hore waxa uu sidoo kale ku adkeeyay in marka duruufaha qaab ay qabsadaan Iran in ay gasho wada hadal in ay tahay baa leeyahay wada hadalladaasi in la sii wado si mowqifka Iran loo adkeeyo Iran ayaa marar badan ku celisay in wada hadal kasta oo lala galo dhinacyada dibadda uu yahay in uu dhowro madax banaanida karaamada qaranka xuquuqda shacabka iyo waliba wada jirka dawladnimada Iran sidaas darteedna aanu jirin cid wixii hadda ka dambeeya looga tanaasuli doono waxa Iran ay leedahay iyadoo markaa dawladda Iran ahayd hadalladaas adag ay ka soo baxayaan oo ay leeyihiin warinaguna waa naqaanaa wada hadalka dagaalna waa naqaanaa arrimaha sirdoonkana nalooguma dhawaado waxaynu wajahaynaa dawlad 250 sano jirta innaga oo 2000 oo sano oo ka badan adduunka dawlad ka ahayn oo waliba mar lagu tilmaamay Faris inay kamid ahayd dawladihii ugu adkaa ee caalamka ka jiray sida Ruushka, China, Americanka, North Korea dawladaha sida loo sheego ayay bari Farisiyiintu ka ahaayeen adduunka nimanka marka Iran la yiraahdo lafa dambe ay u dagaalamayaan la taliye ka tirsan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in siyaasadda lagu xadidayo ama lagu cadaadinayo Iran ay qayb ka tahay qorshe ballaaran oo lagu goleeyahay buu yiri in lagu yareeyo qiimaha shidaalka iyo batroolka gudaha Mareykanka xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo doorashooyinka gudaha sida dooda ninkaasi Trump la taliye loo dhigay sida uu sheegay ninkan maamulka Trump ayaa aaminsan in xasiloonida suuqyada tamarta iyo hubinta socodka shidaalka caalamiga ay door ka ciyaari doonaan hoos u dhigida qiimaha shidaalka ee gudaha Mareykanka arrintaas oo saameyn ku leh xaaladda dhaqaalaha iyo aragtida codbixiyaasha hadalkan ayaa imanaya xilli ay dadaalo siyaasadeed oo weyn ay ka jiraan gobolka bariga dhexe isla markaana Trump uu cunaqabatayntii ugu adkayd oo dhinac walba ah uu ku ooday wadanka Iran balse Iran ay u muuqato rafasho ay ku badbaadi karayso in ay jirto dhinaca kale wasiirka amuraha dibadda Iran ayaa waxa uu leeyahay wadankeenu ma aha sida Mareykanka iyo reer galbeedku ay u fasiranayaan غيرتي نلا سعوتاي قبل كباري دحي وحبا الله اسكما ريبانايو وانين كاستو إيا تاكتي إيا تبرتي إيا ترغي وينانتي حالكاس أيا الله اسكو تكتغيا ونكي تبارير أيا لدونايا إن دنكي سلو تيعو سلامركانا علايسكا أردن دوشا لغا سارو لكن إلا وحي ليهين ودن كاني ما حمي ترترمايو سيدا لو فيلينايو أو أي أترابيان مريكنكا إيا وليبا dhinacyada ku tiirsan xaalku sidaas maaha